community-ga St Cloud ee Soomaalida ayaa maanta waxa ka dhacay kulan oo ay kaga hadlayeen dadka waalidiinta Soomaalida carruurta dhibaatooyinka ka haysta fikradahaas oo loo kala duwanaa ayaa halkan waxa ila joogta Ruqiyo oo ayada naftigeeda rabto fikirkeeda inay ka tiraado dhibaatooyinkan sida wax looga qaban karo Ruqiyo sidee kula tahay arrimahan waxbarashada ka haysta carruurta Soomaalida iyo waalidiintaba sidee wax looga qaban karaa haddaan kaaga warramo Axmedow sida wax looga qaban karo waalidka iyo ardayda iyo macallimiinta waa iyada oo kulan la yeesho lagana wada hadlo cid waliba oo dhib wado maxaa yeelay ilmihii carruurteena dhib bay wadaan waana laga yaabaa in laga dhiban yahay iyaga dhib bay wadaan aniga waxaan tagaa iskuulka waxaanan tagaa 3 bariba maalin waxaan u raacaa baska waxaan ay hooyo carruurteeda dhigata midna uu iga garaajileeshmay midna gareedka 10aad bay gabadha ii dhigataa haddaan fiiriyay ilmaheena abaaqiib xun bay ku socdaan sababtoo tahay wadanka waxaan soo galnaa aynaga oo ABC aanan qorin waxaan fuujar la yeelanaa ilaa heer jaamacadeed ilaa nolol wacan ayaan meesha naga soo gaarto waxa dhacdo carruur kamid carruurihii way iska hor imaan karaan marka ay iska hor imaadaan waalidkii ayay waxay fahansiiyaan qalad guryihii joogay carruurtii kadibna waalidkii waxay qaban qaabinayaan sidii carruurtoodii garab ay u siiyaan anigu waan ka soo horjeedaa sababaha aan uga soo horjeedaa waxay tahay macallimiin ka wanaagsan iskuulka Apollo ma dhigi doonaan mana la arki doono sida carruurteena wax u baran gabadheeda markay ka soo qaad ay baranayso ABC ma ay aqoonin maantayna foomka ayada ii buuxiso hal maalina lagama soo sheeganin waxaan qabaa carruurta iska horkeenayso mujtamaca in laga qabto oo waliba fiiro gaar ahaaneed loo yeesho waalidkood iyo dadka wax barayaba si ayan u kicinin mujtamaca ama diiniyan ahaan ayan dadka iskaga horkeenin si gaal iyo muslim ayan u noqonin sababta ay tahay meesha waxaan u tagna muhiimadeeda waxay tahay waxbarashana waa ku haysanaa 100% aniga waxaan hooyo Soomaaliyeed waxaanan u celinhayaa mahad aad u weyn ayaan ugu celinhayaa hambalyo Apollo High School macallimiintiisa maxaa yeelay wayna xushmeeyeen wayna soo dhaweeyeen si wanaagsan ayay noo qaabilaan annagoo waalid markaan tagno ama community ahaan aan u tagno ilaa principalkan nala shiro wuxuuna naga dhageystaa ilaa qofka u dambeeyo uu ka hadlo kadib ayuu warbixintiisa soo gudbistaa taa waxaan leenahay horta wuu ku mahadsan yahay laba waxa dhacday salaadihii oo la isaga hor imaaday musqushi waan tagnay shirki wuxuu noo sheegay in ilmaheena musqul gooni loo daayay gabdhihii kalena laga mamnuucay inta tukanayso iyo Soomaalida loo daayay waxa dhacday ilmaheena Soomaalida inay tageen musqulihii kale carruurtii laga xukumay musqushan ka tageen musqushi kale inay ugu tageen toodina makeup biyo qurun ay ka dhigeen ayaa waxa nala tusay leef carruurtiina musqushaada waa tasaalayir waa loo daayay saasay ka sameeyeen waalidka daatiin waxa ka qabanaysiin idinka og laba carruurtiina salaaday u sii xadadina loo daayo markii salaada loo daayana ma tukadaan hallwaygi ayaa casharadii kale kaga habsaamaan daqiiqadaha yar oo haystaan fursadooda kama soo dhameystaan inay tukadaan si edabna ugu soo noqdaan galaasyadoodii maxaa kula talin lahayd waalidiinta carruurtooda hadal xumada uga sheegaysa iskuulka adiguna aad tahay dadka iskuulaadka taga lana ku tusay dhiba waxay sameeyeen carruurta Soomaalida waalidiinta maxaa kula talin lahayd waalidiinta Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa hadduu dagaal wax taraayo ama mudaaharaad wax taraayo waa kii wadan saddexaadna keenay hadda carruurteena yaryar oo fuujirka soo koraysa waxaan u rabnaa mustaqbal iyo maskax wanaagsan hooyada qaldan ay taas ka dhaadhacsaneen waxaan kula talinayaa carruurteeda inayan ka qaadanin fikrad wax qaldan markay ku aragto ayadoo degan qof turjubaana ka haysato iskuuladii bay turjubaana naloo sameeyay telefoonka kaliya hadaa wacdado gurigaada joogto waa lagu xaqabtiri ilaa principalka lagu xiraaya ilaa macallimiintii ku soo dhaweynaysa lagu xiraaya wiilal noo shaqeeyo oo luuqadeena noogu shaqeeyo galaaska noo joogo hooyooyinka waxaan ka codsanayaa iyo dadweynaha carruurtaas dhalay inay si degani iyo xal wax ku raadshaan borobaleen iyo dhibaato hadda wax noo taraayo wadankeenu naga soo waday haddana ka taagan yahay dawladaha aan imaanina soo dhaweeyay si akhyaari aan ola noolaano kana faa'iideysana jaaniskeena si mustaqbalka ilmaheena ay wax noo taraan xagga akhlaaqda edabta wanaagsan ardayga qayb badan bay ka qaadataa xagga waxbarashadiisa maxaa kula talinayaa iyagana carruurta yararka oo Soomaalida ah ee hadda aadka u soo badanaya iskuulaadka la keenaya kana yimid Soomaaliya ama Afrika mar dhaweed ka yimid maxaa iyagana kula talin lahayd arrintan ka dhawaajiso oo kale isticmaalka sida musqusho kale inay nadaafadeeda ilaaliyaan
akhlaaqdooda iskuulaadka ilaaliyaan maxaa kula talin leedahay ayagana carruurta waxaan kula talin lahaa waqtigooda inay ka faa'iidaystaan waxay imaadeen waddan hormaray oonan diintooda lagu faragelinaynin oonan midna dhibaato lagu samaynaynin nolol waxaan ku haystaan inay ka faa'iidaystaan marka ay noqonayaan waddankoodii maskax fireesho waxbarasho aad iyo aad dadka horumaray aan la qabsano si aan ku gaarno adduunka kale aanan dib u marin hoomagooda ka shaqaystaan habeenkii markay imaadaan qeybaha marka ay ku baashaalayaan geemka iyo gaangiska wuxuu sameeyo cajalooyinkaas laga taransuulo guryaha laga baabi'iyo ilmaha hoomagooda ay ka fakeraan walaalahooda ka yaryar hoomaga ay siiyaan sida kaalinka dariskooda hooyada aan waxa aqoonin anoo kale ay ilmaheeda caawiyaan sida waxday isku dhaamaan aqoon marka ay baxaan baska si sharaf leenka 5 daqiiqo ka hor ayay qoomiyadaha kale istaagaan ilmaheena leenka ma galan baska markuu soo istaago ayuu midba meel ka soo ordaa inay inta ka taransuulaan leenka 5 daqiiqo ka hor istaagaan baskooda edab ku galaan iskuulka macallimiintooda albaabka security u horeey qiimo siiyaan salaamaan kadib macallimiinta galaasyada xuquuq siiyaan ogaadaan waaridka labaad inuu macallinka yahay kuwa raashinka siinayo sidoo kale xaq ay ka leeyihiin waxa loo wada shaqeynayo waa fuujarka inay ayaga ka faa'iideystaan marka carruurtayada Soomaaliyeed waxaan hooyooyin horay aan waxba u soo akhrisan waxna u soo qorin geeli ay daba socon jireen laga keenay magaalo dhaqanka magaalada sida lagu laqmo way adagtahay laakiin dharka magaalada sida lagu gashado way fududahay taa inayan ku dhicin ay waaridkina garab qabtaan ayagana nolol fiican gaaraan ayaan kula talinaya ilaahayna uu gaarsiyo waxyaalaha qalbadeena ku jirana aan ka taransuulno oo ay kamid tahay aqoon darrada carruurta waxay noo soo sheegto inaan qabsano on garab ku siino kadibna aan ola tagno dadkii caawinayay hadduu xafiis ah iyo hadduu iskuul ah kadibna meeshaas ka hor imaasha ka dhici waxbarashadii ma helaysid maxaa yeelay ninaad adiga bariiskiisa meeshuu ka heli lahaa jeegiisa isku tixgelisay inaad ka soo xirxirto dacweysay carruurta qalbi faran wax uma baraayo marka yaayan dhicin taas carruurta macallimiinta waxay u tahay waaridka labaad hataa ha la ogaado ha la xushmeeyo sida hadday dhacdo bini aadam waa inuu qaldamo ama arday kale ardaygaadi ku qaldamo si degan macallinka hadduu qaldamo si degan xafiiska ka sarreeya warkaaga u geyso turjubaan ku soo dhaweyni iyo xaquuq baad Mareykan ka helaysaa qaasatan hooyooyinka single maadarade xushmad gaar ahaaneed taaniyan ayuu Mareykan u hayaa kuna soo dhaweynaya aanan dalkeeni ku qabin marka tigelintaas ha sameeyaan sharafana lagu soo dhaweey carruurta waxna loogu baraya inagana hana laga helo dadkii inaan sidaas oo kale gacmo furan ku soo dhaweyn si cilmeeni naxariis iyo qalbi fiican ay u helaan kulan kulmaan maskax fresh yaynan dhumin taas waxay ahayd ruqiye oo kamid ah waalidiinta degan magaalada St. Cloud carruurteedana ay dhigtaan iskuulaadka qayb kamid ah aad